بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعن وناكسن خيارته هودا aynu ku wada xiriirnay halkan waa VOS 24 TV waa maalnimo axada bishanu ay tahay 22 bisha koowaad ee sanada 2023 barnaamijka aan rabno maanta inaan uga hadalno waa barnaamij quseeya ummadda muslimiinta ah waana barnaamij la doonayo in ay ka dhigidiyaan muslimiinta waxaan maanta uga hadlaynaa oo axada laba barnaamij oo muslimiinta quseeya in ay ka bixiyaan falcelin iyo jawaab mid waa mid koowaad oo wadanka Hindiya ay ka timaaday warbixintan muslimiinta Hindiya dhibaato xoog badan ay ku qabtaa dawladda Hindiya ee haatan talada haysana waa dawlad xaq jira oo islaamka aad u nacib door mar ay islaamka gaf u geysteen dawlad ahaan mar baarlamaanka warjeesha ka bixiyo mar gabar kaleeto waa door mar haddaba midda hadda taagan maalnimada sabtida ahayd oo taariikhda ay ahayd 21 bisha koowaad hadda aan ku jirno waa shalay muslimiinta dhibka loo geystay waxa laga burburiyay masjid dhisnaa 5 qarniga waa taqaanin waa 100 sano 500 sano dhisnaa waa inta la hubo oo la hayo masjidkani waxa uu ku yaalay wada laami ah oo yar waxay ku soo boogeen ay kooxaha milishibiga ay dhaheen wadada maadaama highway laga dhigayo laba wado oo isbarbar socda laga dhigayo waa in masaajidka khadka ka baxaa muslimiinta Hindiya waxay warqado u qoreen dawladda waxay warqado u qoreen UN-ka waxay warqado u qoreen dawladaha islaamka muftiyaasha islaamka ee dawladaha dhamaan wax ugu soo jawaabay midna ma laha shalay waxa ku dhacday katarabiilkii kooxaha dawladda ee wadayna gaalada ah burburintii ayaa ku bilaabay haddaba markii taariikhdaada ama adiga in lagu baabi'iyo la doonayo bulshada waxa laga galaa taariikhda meelaha ay taariikhda ku leeyihiin ayaa laga baabi'iyaa ayaga iska baabi'i doono jaraa'id ka baxa dalka Hindiya ayaa wuxuu qorayaa wuxuu leeyahay masaajid muslimiinta Hindida waxay ku hayaan dawladda dhibaato xoog badan Al Jazeera waxay leedahay oo arinkan ayada kaliya ka hadlaysa warbaahinta kale kama hadlayso waxay leedahay wadada maadaama ay dawladda dhisi rabto waxa kaga xaq lahaa in la burburiyo masaajidka waxa kaga xaq lahaa dhanka kale oo guriyo iska caadi ah aayeen in la burburiyo sidaas wadada lagu marsiyo laakiin taasi ma suurta galino guriyahaasi waxa iska leh dad Hinduus ah hadii Hinduuskuna waa taqaanin waxyaamaha looda iyo timaha iyo wax iska caabudo waay dawladdeena waa ayaga waan dadka ugu xoog badan oo islaamka aad u nacib warbixinta waxay ku daraysaa maadaama ay Hinduuska guriyahaas Hinduuska ay degan yihiin uu kaga xaq lahaa waxa loo wiciyay dhanka kaleeto in masaajidkan uu islaamku uu leeyahay la burburiyo dadkan islaamnimadoodana ma ahan wax shalay darad ay qaateen dawladda islaamka markii dhalatay oo Nabi Maxamed kaleey salaatu salaam intuu islaam jiro way jiraan gumeystihii Ingiriiska markuu ku soo duulay dalka Hindiya ayuu kala gooyay oo qolaba beel u tuuray Pakistan gooniyo ka dhigay Bangladesh oo islaam u badan gooniyo u gooyay Hinduuskan oo balaayada daran caabudo qaar xataa waxa jiro oo qoorahooda iyo xaniyahooda caabudaan qolaba waxay doonto iska caabudaan meel buu ku soo gooyay Hindidan hadda la yaqaan Hindi la dhaha ayaga waaye meeshaas u keenay wuxuu ku dhex daray marka hala yar oo muslimiin ah si loo cunsuriyo loo gumaado ayuu ku dhex daray oo ka reebay islaamka kaleeto cunsuriyadii xilligaas bilaabatay ilaa hadda muslimiinta Hindiya waa lagu hayaa oo dhan walba laga soo galaa ilaahay mooyee aadamina uma maqno gabagabadii marka adduunka wuxuu leeyahay culimo uu leeyahay wadan walba culimo leedahay culimada wadankaasi waxay sameeyaan way isku tagaan ayagoo isku tagay hal qof ugu cilmi badan ayay soo saaraan mufti ayaa la hadal maqashay muftiga Iraq muftiga Masar muftiga kida wadankaas da maqashay waa saa oo u dirsadeen islaamka Hindi joogo warqaday u qorteen uma soo jawaabin cid u soo jawaabada ma lahan waxyar aan kaga dhaco maalin sida u fogeen markay qabsadeen Afghanistan qolooyinkan Taliban kala dhaho xaq jiriinta ah ee islaamka markay qabsadeen waxay burburiyeen sanad budiisi la dhigi jiray oo weyn oo muddo 5 qarni ayagan lagu tilmaamay markay burburiyeen waxa ka hadlay wadamo badan ka hadlay UN-ka ka hadlay oo taariikh baa la burburinaya oo macad baa la burburinaya waa madax la galay waxa ka hadlay marka muhiimada aan siino muftiga Masar oo sheegay in ummad taariikhdooda aan la baabi'in wixii caabudayaan aan faraha laga galin ma ahayn qolooyinkan Taliban in ay ka burburiyaan waxay caabudayaan sanabka ahaa haddaba marka maxay ugu hadli waayeen masaajidkan maanta xaalkiisu u taagan yahay qaybna burbursan ee shalay ka tarbiilka lagu bilaabay muftiyaashana kama ay hadlin UN-ka shalay burbuwayna kama hadlin ileen waa islaamkii waxba lama sii boonin islaam marka xaalku meesha soo maraya dhan walba islaamka waa laga dagaalamaya barnaamij kale ayaan soo wadaa islaamaantadan hadduu Ilaahay idmo waan soo gelin doonaa oo ayadan islaamka qoseeyo ee wadanka Sweden ka dhacay waxaan idinka codsanaynaa marka inaad arrinka
markaana ka dhidhiisaan sheergaraysaan gaarsiisaan walaalaha kale fikradiina ka soo dhiibataan kabatiga aad ku cabirtaan fikirkiina iyo kheyradda waxa idinku jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu BOS 24 TV qofkaanan subscribe saarin fadlan subscribe saaro si markasta uu ku soo gaaro